quick advice baan siinayaa you know haddaad haysatid caruur yar yar oo maanta 12 jir ah mogtahay sanado yar wax ka bacdi jaamacadda geli doonaan jaamacaddana I'm telling you waa meel dangerous ah wax la yiraahdo brainwashing maaragtay baa lagu sameeyaa especially hadduu wiilkaaga ama gabadhaada ay jeceshahay anything to do with society maaragtay oo strong values haddayna lahayn ilmahaaga yar hadhow to brainwash baa lagu samayn doonaa easy baa maskaxda looga qabsan doonaa just because jaamacadda galeen hamoodin inay yihiin dhalinyaro maaragtay valueskooda uu adag yahay a lot of young people maanta oo dhalinyaro fara badan mentally strong maaha anxiety bay leeyihiin depression baa haysa and they don't even know waxa ay maaragtay nolosha ay ka rabaan ama ay yihiin haddii aadan la socon ilmahaaga waxyaabo fara badan oo uu beliefsan yahay faruukaa bixi doona maba garan doontid jaamacadda markuu galo iyo markuu kasoo bixi doono maba garan doontid wiilkaaga ama gabadhaada haddii ay jiraan hooyooyin iyo aaboyaal maaragtay maanta dhibaatadaas ay haysato as leedahay wiilkayga gabadheeda iskuulka especially gabdhaha waa u badan jaamacadda markay galaysay caadi bay ahayd gabadh sidan ahayd laakiin even hadday jaamacadda gurigaaga kula degan tahay maskaxda waxyaabo fara badan baa lagu barayaa I have that experience markii anigu waxaan jaamacadda markaan galay social science baan baran jiray so sociology maaragtay there's a lot of things baa lagu barayaa laakiin when it comes to feminism wax la yiraahdo maaragtay I hate that thing haddaadan marka ugu horeysa strong values aadan lahayn ilmahaaga aadan horta marka hore ogooba ilmahaaga muxuu rumaysan yahay what do they believe haddana social media ba wax kasta waa lagu buuxinayaa ilmahaaga waxaad mid qolku iskaga jira waxbuu baranayaa buug buu akhrinayaa no qaar baa maskaxda caadi laga qabtaa markuu soo baxo ilmahaaga ma taqaanid you will not know by the time they are 19-20 ilmahaaga ma garan doontid so hadda waxaad samaysaa make sure hadda aabe tahay hooyo tahay ilmahaaga la soco maxay akhrisadaan interestkooda waa maxay horta like debateka maxay ka debate garayaan so make sure you learn about your child